Golahaas waxaa markii koowaad la abuuray 2013 bishii August ayaa waxaa lagu aasaasay decree madaxweyne xasan sheekh maxamuud. qaabka loo sameeyey wuxuu ahaa in maadaama goboladu markaas aysan aad u fadhin, waxaa membaro kaliya ka ahaa xubnaha dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo 5 wasiir iyo 4 taliye ayaa xubno ka ahaa. markii 2017 farmaajo yimid, maadaama goboladii ay dhamaystirmeen oo la aasaasay ama lagu heshiiyey heshiiskii amniga qaranka, ayaa qaabka gobolada in lagu daro loo ballaariyey oo lagu soo daray 5 dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. marka wuxuu u qaybsan yahay 3 jaranjaro oo ah qaybta dowladda federaalka la yiraahdo, qaybta dowladaha xubnaha ka ah, iyo qaybta farsamada oo taliyayaasha iyo la taliyaha amniga. 5taas xubnood oo iyagana farsamo ah ayaa xubno ka ah. labada marbana waxaan qayb ka ahaa dadka draft gareynayay dikriyadii lagu sameynayay. waayahay, marka si golahaasi u kulmo maxay u baahan yihiin? dabcan xeer hoosaadkiisa kii dambeeto ayaan ka hadli karnaa. kii hore maadaama uu hadda aan lagu shaqaynayn, madaxweynaha ayaa isugu yeeri kara shir joogto ah oo markii ugu dambeysay inuu ahayd 3 bille, laakiin haddana shirar degdeg ahna madaxweynuhu waa isugu yeeri karaa mar allaala markii xaalad weyn oo dalka in laga tashado u baahan ay kusoo kororto. laakiin haddana soo jeedinta dhinacyada kaleo dhan way ka iman kartaa. marka hadda si golaha amniga qaranka ay u kulmaan, ma qasab baa in dowlad goboleedyada madaxdooduna ay kasoo qayb galaan? waxaa jira arrimo aan iyaga khusaynin. markii laga wada hadlayo, xeer hoosaadku wuu u fasaxayaa in ay dowladda federaalka kaliya ay shir gaara qabsato oo ay arrimahaas ku xalinayaan. laakiin xaaladda hadda taagan waxaan u malaynayaa in ay muhiim tahay haddii la isugu yeerayo inay qayb ka ahaadaan. golahaas marka ay kulmaan, go'aamada ka soo baxaahi ma go'aamo sharciyeed baa mise waa talo? sidayse u dhaqan galaan? talo ayay ku ekaanaysaa hadda, laakiin qorshihii la rabay 2017 waxay ahayd golaha in baarlamaanka uu ansixiyo oo uu ka gudbo dikriiga madaxweynuhu ku abuuray. marka maadaama aanan weli baarlamaanku uusan sharciyad siinin, golahu waxa uu qaato ay binding noqon karaan ma aha. laakiin sida loo waday waayadan dambeeto waxaa mooday in iska xaal mastuur ahayd. waaya, marka aasaaskii golahan qayb baad ka ahayd waana ka soo shaqaysay. marka markii horeba dib noo xusuusiyo, maxaa loogu baahday horta golahan? waxaa loogu baahday dabcan golaha amniga qaranka waa dowladnimada casriga 50 sano ayay kusoo korortay oo dowladaha badankood ay marba waa loo kala horreeyay, lagu kala qaadanayay. waxaadna moodaa dalalka dunida badankood inay wada leeyihiin. waxaana loogu talagalay meel khusuusi ah oo arrimaha masiiriga ah iyo arrimaha taabanaya amniga qaranka in ay go'aanada ka qaataan. marka teenu waxay ahayd in dowladnimada casriga lagu habeeyo. sharciyadii ayaa uun laga gafay, marka meeshaas ayuu hadda ka laalaadaa. waaya, marka xaaladda lagu jiro xog ogaal baad u tahay, ma ku muuqataa inuu qabsoomi karayo kulan golaha amniga qaranku ay yeeshaan xilligan? runtii de ma garanayo meel ra'iisul wasaaruhu uusan kasoo qayb galaynin sabab hadda loo yiraahdo golo amni. 2 wasiirada oo 6 ah haddii aan ku tiriyo, waa wasiirka maaliyadda, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka cadaaladda, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga gudaha. 6daas wasiir maadaama hadda dowladdu ay qaybsan tahay, sida loo kala qaybsan yahay lama garanayo. taliyayaasha sida u kala qaybsan yihiin lama garanayo. marka waxaa moodaa arrin aan hadda meesha looga baahnayn oo in uun kayska laysku hayo maxkamadaheedii loo daayo ama xal siyaasadeed laga gaaro qaabka loo wada shaqaynayo.